Ciidamada Itoobiya ee jooga magaalada Baydhabo ayaa laba garab u kala jabay. Qayb waxa ay si toos ah u sheegtay in ay la safan doonto Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dareemaya culays uga imaanaya dhanka mucaaradkiisa iyo dowladda dhexe ee federaalka. Qayb kale waxay si toos ah u sheegeen in xilligan la joogo aanay habbooneyn in ay farageliyaan siyaasadda Soomaalida dhexdeeda, sidaasi awgeedna faraha ay ka laabanayaan xaaladaha siyaasadeed ee ka taagan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ciidamo fara badan oo arrintaas ka carooday ayaa saacadii u dambeeyay waxay u jeesteen duleedka magaalada Baydhabo, wixii taageersnaa ama taageerada u muujinayay dhanka siyaasadahan Laftagareen in ay la saftaan. Waa ciidanka Itoobiyaanka waxa ay bilaabeen in ay tagaan saldhigyo iyo goobo gaar ah, kuwaas oo sheegay in ay u babacdhigi doonaan ciidamada ku wajahan magaaladaasi ee doonaya in culays xoogan oo dhanka militariga ay saaraan. Ila kala duwan ayaa warbaahinta Xuraasi waxay u sheegeen in saacadii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo guud oo ay wadeen ciidanka Itoobiya, kuwaas oo bilaabay in ay diiradda saaraan xogaha iyo macluumaadka guud ee la xiriira arrimaha hadda socda, taas oo muujinaysa xaddiga awoodeed iyo midda siyaasadeed ee Itoobiya ay ku leedahay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sargaal sare oo ka tirsan ciidanka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu warbaahinta qaarkood u sheegay in Itoobiyaanku arrintan kala jabkooda ay sababtay in saraakiisha iyo xubnaha qaarkood ay ka baxaan xeriyihii ciidan ee ciidanka Itoobiya ay ka joogeen magaalada Baydhabo. Waxay ciidamada Itoobiyaanka qaybta la safatay dhanka Laftagareen ay tilmaameen in ay difaacayaan magaaladaasi sidii uu madaxweynaha hadda jooga ee Koonfur Galbeed xilkaasina haya waa Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo u qabsan lahaa doorashada uu doonayo in deegaanada maamulkaas ay ka dhacdo, isla markaana amni ahaan saaxiibkooda ay si gaar ah u ilaalin doonaan. qaybta cadarsan ee magaalada isaga baxday ayaa qudhoodu waxay sheegeen in xilligan la joogo aanay diyaar u ahayn in ay ku dhex dagaalamaan siyaasad Soomaali dhexdeeda, sidaasi awgeedna iyadu ay isdiili karto ama ay ka heshii karto arrimaha guud ee dhanka siyaasadda ee Soomaalida ka dhex jira, sida ay xubnahaasi ku doodeen. ila wareedyo kala duwan ayaa ku waramay in ciidanka Itoobiya ay markaan bilaabeen in xeryahooda ay ka soo baxaan, iyadoo magaalada Baydhabo lagu dhex arkayo ciidan aad u fara badan oo qaarkood la sheegay in ay gudaha magaaladaasi istaageen goobaha muhiimka, wadooyinka qaarkoodna dadka waa loo diidayaa, waana ciidan dahaaran dhammaan jirkooda oo aan la ogeyn in ay yihiin ciidan Soomaaliya iyo in ay yihiin ciidan kale oo Itoobiyaan ah. Xitaa dadka waxay kala hadlayaan gacmaha iyagoo tilmaamo u muujinaya waa markay doonayaan in dadka ay dib u celiyaan, taas oo abuurtay shaki xoogan oo la xiriira in ciidamada Itoobiya ay go'aansaday in Laftagareen ay difaacaan magaalada Baydhabo ku haray in ay ku dhex milmeen ciidamada guud ee magaaladaasi ku sugan. duleedka magaalada Baydhabo iyo deegaano kale oo ay ka mid tahay degmada Buur-Hakaba waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo iyo abaabul xoogan, iyadoona la sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ciidan aad u fara badan halkaasi u dirtay. ujeedka dowladda federaalka ayaa ah in ay meesha ka saarto maamulka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen qabatana doorasho iyadoo ay doonto ama ay doonayso sida ay rabto inay u maamulato, taasoo keentay in siyaasiyiinta Koonfur Galbeed arrimahan ay ku kala qaybsamaan. Laftagareen qudhiisu waxa uu doonayaa in uu samaysto doorasho sida uu doono u dhici karta, iyadoona loo badinayo in doorashadaas gudoomiyaha baarlamaanka, xildhibaanada isaga taageersan iyo Laftagareen qudhiisuba ay dib u soo laaban karaan, taas oo la mid ah doorashooyinka inta badan carada ku dhasha ama waqtiyada xanaaqa yimaada, si meesha looga saaro awood siyaasadeed iyo awood militari oo maamulkaasi xilliga lagu maquuni karo. inkastoo guddiga doorasho Laftagareen u magacaabay uu si toos ah albaabada ugu furay cid walba oo doonaysa inay ka qayb gasho doorashada, haddana uma badna inay ka qayb gali doonaan xubno ka baxsan xeyndaabka saaxiibada ama wadaaga Laftagareen in ay magaaladaasi Baydhabo ay tagi karaan, maadaama isu socodka dhanka dhulka iyo diyaaradahaba magaaladaasi ay xilligan go'doon ay gelayso marka la eego siyaasad ahaan sida ay wax u socdaan. Laftagareen ayaa la filayaa in magaalada Baydhabo uu ku dagaalamo haddii la isku dayo in gudaha magaaladaasi loo galo. Waa midda keentay in uu diyaarsado ciidan xoogan, waxaana xeryaha ciidanka Itoobiya laga soo furay askar dhowaan tababar halkaasi ku qaadatay,
kuwaas oo la sheegay in qaarkood xitaa aanay u dhammaanin waqtigii loogu talagalay in tababarka ay qaataan, balse arrintooda ay soo gabagabaysay waa tababarkoodii xaaladaha taagan iyo xiisadaha soo kordhay ee Koonfur Galbeed ka jira si loo difaaco maamulka waqtiga iyo dhaqaalaha ku bixiyay tababarka ciidamadaasi. lafta gareen ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxay siyaasadaanis hayeen dowladda dhexe federaalka Soomaaliya, isagoo hakiyay wada shaqayntii kala dhexaysay dowladda si meesha looga saaro jiritaanka awoodeed iyo kan siyaasadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya ku leedahay deegaanada Koonfur Galbeed. waxaa isbeddel lagu sameeyey saraakiisha qaarkood, iyadoona meesha laga saaray xubno fara badan oo dhaqdhaqaaq awoodeed oo dhanka siyaasadda ku lahaa deegaanada maamulkaasi. ha yeeshee waxaa jira abaabul xooggan oo arrimahaasi ku saabsan oo ay wadaan ciidanka Itoobiya oo iminka labada garab u kala jabay. wixii warar iyo dhacdooyin arrimahan ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuraansi ku daawo.